Soomaaliya ayaa hadda u jihaysatay qaadida dhabaha doorashada. Xildhibaanada labada gole ayaana wata shaqo maalmeedkooda. Si weyn ayay dhinacyada siyaasadda ugu foogan yihiin sida ay u heli lahaayeen ribix siyaasadeed. Hadda aagaga ugu badan ee lagu loolamayo waa guddoonka labada gole. Aan eegno golaha shacabka. Musharaxiinta u taagan madaxweynenimada Soomaaliya cid kasta waxa ay jeclaan lahayd saaxiibadeedu inay ku soo baxaan guddoonka baarlamaanka 11aad. Waana aaga ugu badan ee ay hadda dhinacyadu isku wajahayaan iyagoo aan u kala safnayn mucaarad iyo muxaafid. Darafyo badan oo horey siyaasadda ugu kala irdhoobay ayaa ka mid ah kuwa ay hadda maalmuhu saaxiibtinimo ku meel gaara u samayn doonaan. Jagada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ah midda ugu badan ee loolanka adag ka dhici doono. ilaa hadda musharaxiinta la og yahay ee damacooda bannaanka keentay waxa ay gaarayaan 8 musharax. 7 ka mid ah ayaa ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Sababta u badisay in musharaxiintu ka soo jeedaan deegaankaas waa kursigan oo intii ay jirtay dowladiska Soomaaliya ay soo qabanayeen siyaasiyiin ka soo jeeda deegaankaas. 7 musharax 3 ka mid ah ayaa la aaminsan yahay inay weli yihiin musharaxiin heli kara codad badan marka la joogo gudaha Koonfur Galbeed, iyadoo aan weli caddayn mowqifka madaxweynaha maamulkaas ee ku wajahan cidda noqonaysa ama uu la doonayo guddoonka baarlamaanka golaha shacabka. Tartamayaasha ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa isugu jira xubno horey siyaasadda ugu jiray muddo dheer qaarkood. Xubno ay yihiin kuwa 5 sano ee la soo dhaafay la socday marxaladaha siyaasadda iyo kuwa ku cusub. Dib ayaan ka eegi doonaa shakhsiyaadka iyo waxa laga yaqaanay tartanka waxa xiise u yeeli doona sida ay xildhibaanada ka soo jeedo Koonfur Galbeed u maareeyaan jihada siyaasadda xilli si weyn indhaha loogu hayo dhaqaaqyadooda. Koonfur Galbeed ayaa sanadkan u soo dirsatay baarlamaanka Soomaaliya xubno ka duwan kuwii hore u matalayay. Waa dhalinyaro badankood ku cusub siyaasadda iyo golaha shacabka, waxayna xoogga saarayaan sidii mid kastaaba u dhisan lahaa siyaasad uu muddo dheer ka ahaado madaxa ugu sarreeya, taas oo aan durba cidna saadaalin cad ka bixin karin jihada guddoonka golaha shacabka. Docda kale xubnaha tartamaya ee 8 ah waxa ka mid ah Cabdirashiid Xidig oo markii saddexaad doonaya inuu tijaabiyo nasiibkiisa guddoomiyaha golaha shacabka. Kama soo jeedo Koonfur Galbeed balse taageero ayuu sheegay inuu haysto. Xidig waxa uu ka yimaadaa Jubbaland, waxayna u noqonaysaa tijaabo kale oo siyaasadeed. Doorashada guddoomiye ku-xigeenada ayaa ka mid ah kuwa sida weyn iyana loogu loolami doono. Ku-xigeenka koowaad oo ay leedahay beesha shanaad ee Soomaaliya ayay durba ka soo baxayaan warar kala duwan. Haddii Fahad Yaasin ka mid noqdo tartamayaasha, waxay ka dhignaan doontaa in loolanka kursigan ka cuslaan doono kan guddoomiyaha golaha shacabka. Dhinacyo badan ayaana u arka imaanshaha Fahad ee golaha inuu halis siyaasadeed oo weyn ku yahay dhinacooda. Waxaa ka mid ah dhinacyadaas dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, ra'iisul wasaare Roble, qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo dowladaha saamaynta ku leh arrimaha Soomaaliya oo rumaysan haddii uu yimaado Fahad guddoonka golaha ay ka dhignaan doonto in yoolkiisa siyaasadeed uu hirgalay. Ayna adag tahay inay si fudud ku hagaan howlaha siyaasadeed ee Soomaaliya xataa haddii farmaajo soo bixi waayo. Sidaas oo kale inta la og yahay booskan waxa uu sharaxan in ka badan 7 musharax oo ka soo kala jeeda Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland iyo gobolka Banaadir, waana xubno dhammaantood ka soo jeeda beesha shanaad. Ku-xigeenka labaad isna waxa ku tartamaya inta la og yahay ilaa hadda 4 musharax oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka hadda baneeyay booskan Mahad Cabdalle Cawad oo baarlamaankii 9aad iyo kii 10aad baxagsaday isla kursigan. Dhammaan tartankan guddoonka golaha shacabka ayaa ah mid xiiso badan. Maalmaha inagu soo wajahanna waxa la ogaan doonaa sida ay dhinacyadu u sii kala miisaan culus yihiin. Waa 3 maalmood iyo 3 dhinac oo kala duwan oo si weyn dhammaan dhinacyadu ay indhaha ugu hayaan. وتعيش برشاد القرآن كسنة الرسول كدعوين كهجات يعلم الإسلام حتى كبر جوب قصة يوسف كنت عالم كدوكسي أصحاب إسلام كفراي بحفظ فإن كل حري لنتظر شاشة كلام مغضى